24 saac ee lasoo dhaafay wax weyn baa isbedelay dagaalkii Iran iyo Mareykanka dhexeeyay. waxaad moodaa Iran inay muujisay qaab peace nabadgelyo inay muujisay oo ayna wali sidii ay u dagaalamaysay u dagaalamayna hakisay. Mareykanka laftiisuna uu hakiyay. Iran lafteedu waxay taagan tahay anigu wada hadal toos ah cidaan la gelayaa ma jirto, maxaa yeelay gantaalahayga iyo nuclearkayga wada hadal kama gelayo. waxaan doonayaa si nabadgelyo inaan u noolaado. waxaan dareemayaa bay tiri in anytime mar kastaba la isoo weerari karo oo dagaal baan u taaganahay. marka cid xabad joojin dhab ah maadaama aanay dhicin iyo heshiis wada hadal ma geli karno. sidoo kale shidaalkayga iyo ganacsigayga inaan si caadi ah u ganacsadaan doonayaa oo aan cunaqabatayn iyo buuqa layla soo doonan. Mareykanku wuxuu dareemayaa in awoodii ka wareegayso oo China iyo Hindiya iyo Ruushka iyo maxay ahayd Iran ay xagga wax u wareegeen. Mareykanku wuxuu doonayaa power iyo awood inuu adduunka kula hadlo. Iran waxay doonaysaa inay si xorriyada adduunka ugu noolaato. marka waa isjiid aad u adag baa meesha ka jira. waxaad moodaa Mareykanku sidiisii hore inuusan u cadcadayn oo uu arkay in halistu ay ka badan tahay intuu moodayo oo uu xakiyay. dhanka kale diyaaradii daroonka ahayd ee dagaalka dhaweyd ku soo caan baxday ee Iran ee Shaahin la oran jiray waa diyaarad mucjiso ah oo Mareykanka iyo xulufadiisa aad uga yaabisay. 200 kilogram ayaa miisaankeedu yahay. 90 kilogramna way qaadi kartaa oo qaraxya. waxay leedahay GPS khatar ah oo lagu hagayo remote oo kale oo ay joog hoose oo dhulka hoostiisa micnaha dhirta oo kale ay dhex marayso oo raadarada iyo waxyaabaha la rabay inay qabtaan aanay qabanaynin. waxaana ay sida qaraxyo ay ku dhufanayso meel alla meeshii la doono. marka joog hoose oo dhulka abaysaa ugu duulaysaa. waana halis runtii aad uga yaabisay Mareykanka iyo xulufadiisa diyaaradani.